Bakhtanasar waa boqorkii baabi'iyey reer Bani Israa'iil kadib markii ay dileen Nabiyullaahi Yaxya calayhi salaam. Saaxiibayaal, muuqaalkeena maanta waxaan ku qaadaa dhigi doonaa kumuu ahaa Bakhtanasar, halkee ayuu ka soo jeeday, sidee ayuu ku noqday boqor dunida oo dhan ay ka wada cabsato. balse intaynan u guda galin muuqaalkeena maanta, fadlan haddii aad tahay daawado ka cusub kanaalka, rukumo oo subscribe taabo, sidoo kale ha hilmaamin inaad muuqaalka like saarto, iskuna day inaad ugu yaraan hal qof sii gaarsiiso muuqaalkan. Aad u mahadsan tihiin, kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta. Bakhtanasar wuxuu dhashay 630 sano ka hor taariikhda miilaadiga. waa haddii intaysan bilaabin taariikhda miilaadiyadda ama intuusan dhalan Nabiyullaahi Ciisa calayhi salaam. sababtoo ah taariikhda miilaadiga waxay ka soo bilaabataa markii uu dhashay Nabiyullaahi Ciisa calayhi salaam. ninkan wuxuu dhashay marka 630 sano ka hor taariikhda miilaadiga ama intuusan dhalan Nabi Ciisa calayhi salaam. Bakhtanasar waxaa dhalay boqorkii 11aad ee soo mara boqortooyadii Baabil. boqortooyadan waxay ku soo socotay silsilad dheer. boqorka markuu dhinto waxaa xilka qaban jiray wiilkiisa ama walaalkiis. qofkaas ayaana talada la wareegi jiray ilaa uu ka geeriyoodana asaga ayaa xukunka hayn jiray. kadib markuu geeriyoodo waxaa asagana kala wareegi jiray walaalkiis ama qof uu dhalay. haddaba Bakhtanasar waxaa dhalay boqorkii 11aad ee boqortooyadii Baabil, kaasoo lagu magacaabi jiray Nunburas, balse hooyadiis lama garanayo oo cid garanaysa ma jirto. sababtoo ah boqorkan hooyadiis waa ay qarsooneed oo aabihii waxa uu ku qabay wax ay Soomaalidu u taqaano khudbasiro, yacni way qarsooneed. xitaa waxaa la sheegaa in aan la garanayn ilmo badan uu asaga u dhalay. balse Bakhtanasar wuxuu ku soo shaac baxay geesinimadiisa, yacni wuxuu ahaa nin saa'id u yaqaana habka loo dagaalamo. taas ayaana u horseetay inuu ka soo dhex muuqdo ilmihii uu dhalay Nunburas. intuusan Bakhtanasar noqon boqor, wuxuu ahaa abaanduulaha ugu sareeyo boqortooyadii Baabil. xilligoodii waxaa jiray dowlado iyaga ka awood badnaa, waxaana ka mid ahayd dowladahaas boqortooyo lagu magacaabo Ashuriya. xitaa boqortooyadan Baabil waxay hoos imaan jirtay boqortooyadan aan soo sheegnay ee Ashuriya. yacni Baabil waxaa kumaysan jirtay boqortooyada Ashuriya. Ashuriya waxay ahayd mid ka mid ah boqortooyooyinka xilliga ugu awoodda badnaa uguna ciidanka badnaa dunida. Nunburas oo ah Bakhtanasar aabihii oo xilligaas boqortooyada boqor u ahaa, ayaa go'aansaday in gebi ahaanba ay ka go'aan boqortooyada Ashuriya oo xilligaas ay hoos imaan jireen. tilaabadii ugu horreysay uu qaado waxay ahayd in wiilkiisa uu ka dhigo abaanduulaha ciidanka. Bakhtanasar iyo aabihiis waxay diyaariyeen ciidan awood leh si ay dagaal ugu qaadaan caasimadda boqortooyadii Ashuriya, taa oo loogu yeeri jiray Naynawa. micnaha Bakhtanasar iyo aabihii waxay diyaariyeen fikrad aad u wanaagsan, sababtoo ah umaysan sheegin inay ka go'ayaan boqortooyada Ashuriya. kaliya waxay diyaariyeen ciidan, waxayna damacsan yihiin ayaga oo aan waxba ogeyn inay dagaal ku qaadaan, kadibna ay qabsadaan boqortooyada Ashuriya. Bakhtanasar oo ahaa abaanduulihii ciidanka wuxuu diyaariyey ciidankii, kadib waxay dagaal ku qaadeen caasimadii boqortooyada Ashuriya ee Naynawa. wuxuu dagaalkii socdaba waxaa adkaatay boqortooyadii Baabil ee uu hoggaanka u hayay Bakhtanasar. kadib boqortooyadii Ashuriya intii baxsadka ahayd iyo intii kaleba waxay iskugu tageen magaalo lagu magacaabi jiray Xaraan oo iyagu ay haysteen. arrinkii wuxuu noqday arrin lala yaabo, sababtoo ah waxaa la ceersanayaa mid ka mid ah boqortooyooyinkii ugu awoodda badnaa. waxa ceersanayana waa mid ka mid ah boqortooyooyinkii ugu daciifsanaa ee xilligaa jiray. kadib Bakhtanasar oo weli ku dhiiray inuu baabi'iyo boqortooyada Ashuriya ayaa mar kale ciidankiisa isku aadistay, wuxuuna mar kale dagaal ku qaaday halkii ay isku aruursanayeen ee ahayd magaalada Xaraan. halkiina sidoo kale waxaa ka dhacay dagaal aad u qaraar. mar kale boqortooyadii Ashuriya dhulka ayaa lagu jiiday oo sidii ayaa looga adkaaday. Bakhtanasar iyo aabihii ma ahayn go'aankooda inay magaalo qabsadaan kadibna ay ku nagaadaan, balse hamigooda intaas oo dhan wuu ka weynaa. hamigooda wuxuu ahaa dunida oo dhan geeska gees inay hoos timaato ayna kumaystaan. duulaankoodii bayna horay usii wadeen. xilligaas waxaa jirtay boqortooyo awood leh, taa oo ka dhisneed waddanka Masar. boqortooyadan xitaa waxay ka awood badneed boqortooyada Ashuriya oo ay hadda baacsanayaan. arrinkii jabkii boqortooyadii Ashuriya waxay gaartay boqorkii Masar xilligaa haystay, kaasoo loogu yeeri jiray Naqwa.
boqorkii Masar haystay wuu fikiray, wuxuu ku fikiray haddii uu dagaal qaadi waayo ama uu tallaabo qaadi waayo in loogu imaan doono meesha uu joogo. sidaa darteed wuxuu diyaariyey ciidan adag, wuxuuna u diray boqortooyada Ashuriya oo xilligaas laga qabsaday magaalooyin badan oo ay ka mid tahay caasimadoodii welina la ciirsanayo. ciidankan uu diray boqorka Masar magaalo kasta ay maraan waxaa ku sii biirayay ciidan ilaa ay ka gaarayeen halkii ay rabeen. go'aankooduna wuxuu ahaa inay ka rab istaagaan boqortooyada la ciirsanayo ee Ashuriya. ugu dambeyn ciidankii Masaarida waxay soo gaareen mandiqada Karkemish. mantiqadan waxaa ku sugnaa ciidankii Ashuriya oo halkaa ku sugayay ciidankii Masaarida. sidoo kale waxaa meeshan usoo socoto boqortooyada Baabil oo uu horkacayo Bakhtanasar, kaasoo ay ka go'an tahay inuu tirtiro dhammaan magaca Ashuriya iyo wax kasta oo sheegto boqortooyo iyaga ka awood badan. yacni hadafkoodu wuxuu ahaa in dunida oo dhan ayaga ay hoos timaato. ugu dambeyn boqortooyadii Baabil ee uu horkacayay Bakhtanasar ayaa halkii soo gaartay. meeshan waxaa ku kulmay saddexdii ciidan ee xilliga ugu awood badnaa: Ashuriya iyo ciidankii Masaarida oo hal dhinac ka soo wada jeeda, iyo Bakhtanasar oo keligii ah. ugu dambeyn waxaa bilowday dagaalkii. waa la isweeraray, weliba waxaa dhacay dagaal aad u qaraar, dagaal ba'an. dagaalkii wuxuu socday muddo ilaa ugu dambeyn uu ku guuleystay Bakhtanasar. waxaa halkaas lagu jebiyey isbahaysigii boqortooyada Ashuriya iyo tii Masaarida. halkaas ayaana lagu soo tirtiray magaca boqortooyada Ashuriya oo kumaysan jirtay Baabil oo uu ka soo jeedo Bakhtanasar. Bakhtanasar iyo aabihii ma ahayn tallaabooyinka ay dejiyeen inay meel dagaal ku qaadaan, balse markay arkeen Masaarida in ay soo raaceen dowlad ka soo horjeedo ama boqortooyo ka soo horjeedo, Bakhtanasar wuxuu go'aan ku gaaray ayadana in la raaciyo. sidoo kale ayadana sidaa ayaa lagu tirtiray magaca boqortooyadii ka dhisneed Masar. si kastaba ha ahaatee, ugu dambeyn waxaa geeriyooday Bakhtanasar aabihii Nunburas. sidaana waxaa boqortooyada kula wareegay abaanduulihii ciidanka ee Bakhtanasar, wuxuuna sidaa ku noqday boqorkii Baabil. boqortooyooyinkii xilligaa jiray waxay lahaayeen caadooyin u gaar ah. meel allaale meeshii ay soo galaan way burburin jireen, dadkeeda ayay addoonsan jireen, maalkeeda ayay aruursan jireen. balse Bakhtanasar intaasoo idil waa uu ka duwnaa. wuxuu sitay fikrad ilbaxnimo ah, fikrad ka duwan boqortooyooyinkii asaga ka horeeyay. go'aankiisa keliya wuxuu ahaa inuu noqdo boqor ay hoos yimaadaan dunida inteeda kale. magaalooyinka uu kumaysan jiray qofna muusan ka qaadi jirin raaxada, yacni qof muusan dhibi jirin, oo dadka xorriyaddooda ayay ku noolaan jireen. tusaale ahaan qofka diintiisa ma farakishan jirin, waxaa doonta waa caabudi kartaa, yacni kuma soo farakishanayo. sidoo kale dadka caadooyinka ay lahaayeen muusan ku xadgudbi jirin. fikirkiisu wuxuu ahaa diintaa rabta hayso, caadadaa doonta lahaw, keliya iyo ogolaaw inaan ku kumaysto. meelaha uu xilligaas kumaysan jiray waxaa ka mid ahayd Baytulmaqdis. waxaa xilligaas haystay Yuhuudda ama reer bani Israa'iil. xilligaas waxay ahaayeen dad aad u dhib badan, dad ku tartama wax kasta oo xumaan ah. xitaa waxay gaareen heer ay dilaan mid ka mid ah ambiyadii uu Alle u soo diray. caasinimadoodii waxa ay gaareen inay qoorta ka gooyaan Nebiyullaahi Yaxya ibnu Sakariya calayhi salaam. arrintii waxay socotaba waxay gaartay Bakhtanasar. Alle ayaana ku salliday reer bani Israa'iil ninkan. abaanduulihiisii ayuu amray in ciidan uu diyaariyo, kadibna dagaal ba'an ay ku qaadaan reer bani Israa'iil oo xilligaas haystay Baytulmaqdis. sidii ayaana dhacday. reer bani Israa'iil waxaa lagu qaaday dagaal aad u qaraar, dagaal lagu laayay 70,000 oo qof. dhammaan isku si ayaa loo dilay, yacni kulligood hal meel ayaa laga wada dilay. culammada qaar waxay dhahaan reer bani Israa'iil ninkan Alle ayaa ku salliday, sababtoo ah ninkan wuxuu ahaa nin gaal ah, muusan ka danqanin dilkii Nebiyullaahi Yaxya calayhi salaam, balse Alle ayaa qadaray inuu baabi'iyo qoomkan ee reer bani Israa'iil ah. ugu dambeyn ninkan wuxuu gaaray inuu gumaysto dunida geeska gees, bari ilaa galbeed, in isaga ay hoos timaato. sidii uu ku riyoon jiray ayaana dhacday. ugu dambeyn Bakhtanasar waa uu geeriyooday. boqortooyadiisiina waxay noqotay mid daciifta. fikraddii iyo taladii uu ku hogaaminayay oo dhan ayaana dabarka oday. sidaas ayayna ku baaba'day boqortooyadiisii. muuqaalkeena maantana halkaas ayuu ku egyahay.